dadka fanka baxay horta alla dartiis uguma sbixin waxay ugu bixin bilaadan inay qanciyaan. asalaamu calaykum markaan laga dawanaysiin oo wanaagga qoyska ala ugu barateen wararka ugu dambeeyey. fanaanka caanka fanaan idila yare ayaa xalay soo careysan bartiisa snapchat ka soo dhigay muuqaalo taas oo hadlaya fanaaniinta ayaantan ka baxeen fanka. dhanka kale fanaanka ayaa carada dul dhigay fanaaniinka fanka iskaga baxay kaas oo ula jeedo fanaan maxamed bike cabdihani iyo xamdi yar. fanaanka ayaa sheegay in fanaaniintaas ee fanka iskaga baxeen ayagoo weji fiirinaya eena ka ahayn ilaahay dartiis. waa kan wariyaheen nooga soo warama dhankaasi muqdisho xasan biiwaaye oo warbixin nooga haya. fanaanka caanka idlayare ayaa kasoo muuqday baraha bulshada isagoona aada u dhaleeceeyay fanaaniinta la sheegay inay fanka iskaga baxeen, gaar ahaan gabadha xamdo yar iyo kuwa kale. bk ayaa isbuucaani iclaamiyey inuu fankii iskaga baxay hortii cabdihani hortiina gabadha lagu magacaabo xamdo yar. waxaa marka dambe soo taraya fanaaniinta garowsanaya inuu yahay fanku ama haysuhu inay yihiin wax munkara, intooda badanna iskaga baxaya fanka. laakiin waxaa lala yaaban yahay waxa ka xanaajiyey idlayare iyo gabadha kale lagu magacaabo farxiyo kabayare oo ku nool dalkaasi maraykanka. labadooda ayaa mooda in si kulul ay kaga hadleen arrimaha ku saabsan kabixitaanka fanaaniinta soo badanaysa ee fanka iskaga baxay. isbuucaan aan ku jirno waxaa fanka ka baxay mid ka mid ah dadka ugu saameynta badan inta la xasuusto taariikhda Soomaaliyeed fanka, waana maxamed bike. maxamed bike ayaa la rumaysan yahay inuu yahay dadka haatan jiilka jiray fanaaniinta shakhsiga ugu saameynta badan ee ku nool gudaha Soomaaliya. bike ayaa sheegay inuu dad alla iskaga baxay horeyna uu u rajeynayo inuu maalin uu ka baxo, laakiin maanta ay noqotay inuu iskaga baxo fanka. hortiis waxaa ka baxay cabdihani oo ku biiray culummada tabliiqa. axmed biif ayaa garanayseen oo haatan magaalada muqdisho ka barta diinta islaamka. sidee u aragtaa xanaaq uu ka xanaaqay idlayare isagoona si adag oo jees leh kaga hadlay fanaaniinta ka baxday. farxiyo kabayare ayaa iyadana qoraallo ay kusoo qortay barteeda facebooka ay waxyaabo ku jees ku ah dadkii ka baxay fanka ay ku dhahday. idle ma fursad cusub ayaa usoo baxday oo ah in booska aan lagu cayrin doonin, mise wuxuu ka xanaaqsan yahay fanaaniinta tirada badan ee fanka ka wada baxaya? assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waalii qaaliyaadeen islaami, waxaan rabaa inaan idin sheego walaalahaygiyo dadka fanka baxay horta alla dartiis uguma sbixin waxay ugu bixin bilaadan inay qanciyaan. qofka ilaahay inuu qanciyo farxad geliyo waxawaaye social ma soo istaagayo ma dhahayo fanka ka baxay. taas waxay lamid tahay dadmeens waxay lamid tahay in aad bilaadan qancinayso. war fiiri cabdiqaadir abuukar kaskiya ka cod macaana hal habeen ugu angaar organka intuu jibi masaajid oo gal ilaa hadda waa ka saa sheekh waay yaa soo labeeyo axmed biif oo axmed qeyr oo loo bixiyey anagana aan ugu sii wadno. okay kuwan kale bacroortaan waxa waaye ay social media soo fadhiisteen fanka waan ka baxnay. war ilaahay qanci, ilaahay ka farxi, bilaadan ka farxinin ma garatay. qofna u sheeg markaa ka bixis fanka afatamana awala istaag kaadinayseen markaas arnaas kaamir